dalka Guatemala ayaa ku dhawaaqay qorshe ay safaaradooda ugu rarayaan magaalada barakeysan ee Qudus. Madaxweyne Jamie Morales ayaa sheegay Axaddii in safaaradooda ku taala Tel Aviv loo raro magaalada ay ugu yeereen Jerusalem kadib 2 maalin uun markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka soo horjeestay go'aankii madaxweynaha Mareykanku uu ku doonayay in magaalada Qudus ay noqoto caasimadda Israa'iil. Guatemala ayaa ka mid ahayd 9 waddan oo si toos ah ula saftay Mareykanka iyagoo ka soo horjeestay go'aankii qaramada midoobay. Madaxweyne Morales ayaa war qoraal ah oo bartiisa Facebook uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in isaga iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ay ka wada hadleen xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya labadaasi waddan shacab ahaan iyo dowlad ahaanba, isla markaana Guatemala ay si xoog leh u taageerayso Israa'iil. Halka waxa ugu muhiimsan waxa uu ahaa ayuu yiri in safaaradayada loo raro magaalada Qudus, sidaas darteedna waxaan qunsulka ku wargelinayaa in uu si dhaqso ah uga shaqeeyo sidii safaaradda loo rari lahaa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil Emmanuel Nahshon ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan tallaabada Guatemala ay safaaradooda ku rarayaan, isagoo ku sheegay tallaabo aad u muhiim ah. Khamiistii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu cod aqlabiyad leh ku diiday in caasimadda Israa'iil ay noqoto magaalada barakeysan ee Qudus. Maxamuud Maalin, SBS TV, Germany.